انتك دحمرت مسكوشي ku dhax dhacday عبدي ها لسه ay ku dhacday أنا نفرا هاي soo hoostiga soo socdo oo qori iga qabsano qori ka celiya maagay meesho ay qaad lahayd oo iga sii roore dable xoogga Ayuub Maxamed Fiqi oo lagu naanayso Tubac waxa loo haystaa dhaawac xabadeed cabsi gelin dadweyne iyo qasaareen hanti kadib weerar uu ku ekeeyay guri uu deganaa dhibane dable xoogga Nasrudiin Maxamed Abuukar Seerabta oo ay ahaayeen saaxiibo ka wada tirsanaa ururka saddexaad ee guutada 22aad ee Buluus Militara degmada Wadajir taariikhdu markay ahayd 1 bisha 11aad 2024 abbaare labadii duurnimo Tubac oo saqradda ay ka tustay in lacag ay kaga maqan tahay dhibane Seerabta oo ay maalin wada shiteen magaalka ayaa baraaruga ah inay lacag ka maqan tahay kadib u dhaqaaqay inuu si astaka ah ugu tago aabaha dhalay dhibanaha kaasoo isna u sheegay inuu xalin doono tabashadiisa kana warsugo kama daadigin warkaas waxaana uu bilaabay qas iyo cagajugleen qoyska ah dhibana Seerabta oo ku soo baxay buuqa guriga isqabsaday ayaa 3 xabadood oo baas ah uuna soo riday Tubac kaga dhacday dhuunta iyadoo ka baxday garabka falka kadib eedeysanaha oo baxsaday ayaana hay'adaha ammaanka waxa ay soo qabteen 12 bisha 11aad 2024 waa kan eedeysana Tubac oo garsoorku uu sheegay in maalintaasi uu dhafar ahaa xabadahana ay ka fakadeen aniga asiga jaada wada qaadanay meel wada fadhiisanay marka meel wada fadhiisanay waa qaylnay habeen 6 saac ma 7 saac amal miya oo iga soo tagay mobilkii subaxiya mobilka fiiriyay Abdullaahi Kuuriya $100 aniga asiga ku qaylnay marka ku qaylnay ilaahay ku ma darnaaday 106 ay ugu soo hartay boqolkii $70 ka maqnaa waa soo baxay cidii uu maaday cidii marka uu maaday ilaahay ku ma darnaaday abiisa saragnay aabo maxaa dhahay garkayga lacag iga qabay Abdullaahi Kuuriya yahay garkayga waxa iga qabay isii ilaa maxaa dhaasina muddo ilaa iyo 7 saac sug oo dhahay warigaarkaygaan waxa iga qabay aabeeya waxa lacag iga rabay mishaarkii Abdullaahi Kuuriya oo soo dhacay mishaar lacagaan ka rabay soo diray dhuu yahay xasuubiya aada marka dambe Abdullaahi Kuuriya yahay maxaa kale oo si dhahay ana maxaa dhahay warnimo aaba lacag iga sugay haddana baadiyo jira baadiyiina Abdullaahi Kuuriya yahay inuu ka soo dhaqaaqo raba lacag soo baxno meesto gartaas ila xalay ilaahay ku madarnaaday soo maqnaa iyo cunugayga aaw aan oo dhahay lacag ku leeyahay ilaahay ku madarnaaday yarkayga uu maqan oo dhahay marka saasi dhahay gabartii walaashiisa gudaha gashay markay gashay ilaahay ku madarnaaday cunug walaalkiisa wacday walaalkiisa markay wacday maxay dhahday waraabaaga hal rabaa xabad lagu riday ha dhacay kale maaw marka dambe ilaahay ku madarnaaday cunugaan orday ay ma waraabay xabad ugu riday waa marka rana baay xabado ku maridina ilaahay loogay walaalko waxa kugu dhacaa iyo Abdullaahi Kuuriya yahay anin dhafra ahay soo hoostiga soo socdo oo qori iga qabsano qori ka celiya maagay kor u qaada amaani xabadii fagtayna ark dhibana dable xoogga Nasrudiin Maxamed Abuukar Seerabta ayaa garsoorka la wadaagay wixii dhaxmaray eedeysanaha iyo dhibka gaaray ninkan aad maxay ka dhaxay way ma soo gargarac markaas guriga ma xirada ka imaaday waa jiiftay wuxuu dhahay kaale Nasrudiin oo kaal banaan ku soo bax awooday dhaay qofa ku taan saaxibka ku taan oo soo baxay hay aniga maxan dhaxmare jaadka shalay ku gaday si oo dhaay ani xoog ma ka qaataa intaan wax aanu dhaxmare lacag xoog ma ka qaadan jaadka shalay ku gaday si inta aad waa am gidacada Kuurida goortooyada xabada Kuurida saana markuu xabada rida dhinacana uu soo booday dhinacana uu booday asan dhinacaas uu sii booday galo bax lugka da suuqa duwaa ka jibna marka ninkan saaxiibkii uu ahayo misdeen nin hal course iskuul aadno botiyo iskuul aadno ahay misdeen ninkan xabada ku dhufana socodkaas aan u soconayne baaso dhuunta igu dhuftay laba kala garabkooda 3 baalood ugu dhuftay meesho ay qaad lahaa oo iga sii rooray amaanka furto iga sii rooray xirada dhankeeda u rooray xirada marka dhankeeda u rooray ana sii waday halaasna ana rooray nafteeda la badbaadsanaan faan allahan dhuunto xabada igu dhuftay daacadnimadii aan ku badbaaday daacadnimadii ku badbaaday Nuurta Buube Abuukar oo ku sugneed guriga maalintii falku dhacay ayaa iyana halkan lagu dhageystay warbixinna siisay maxkamadda marka walaalkayga soo kacay uu hurday banaanka u baxay intuu banaanka u bixin wiilkayga wuxuu dhahay saaxiibatiina isfaham mayo dhahay waxaas ma jirto yaa dhahay kana dhahay
markoo dhahay yacni hooyadeeda marka albaabka istaagtay albaabka banaanka waa ka ganjeel waay saana istaagtay horta koo inta istaagan boqoriyo walaalkayga intuu bixin qoriyo albaabka soo aadiyay walaalkayga soo booday seertaa soo booday wuxuu dhahay isdijiyo dhaaniyo meeshaan ilmaha joogaan ani aad banaanka ku wada hadlaynaayo caadi iska dhig mayoo dhahay hooyadeeda albaabka saas u taa hooyada waxay dhahay wiilkayga isfaham loo wiilaatiin oo dhalinyaro isfaham mayoo dhahay hooyadoo ganjeelka saas u istaagsan ganjeelkuu ka dhex bixiyey hooyadeedoo oo inoo dil la rabay ganjeelku hooyadoo albaabka saas u hayso intay ka dhex martay musqushay ku dhex dhacday xabadii haa 6 saac ay ku dhacday anigoo u jeedno intuu xabad ka geliyay oo sii dhamaystir lahay dhankaas iyo xerada asoo sii ordi rabo oo ammaanku sii furtay ilma iyo dad iyo allah sasoo ku fagtay xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamadda u soo bandhigay caddeemo ku saabsan galkan oo uu ka mid yahay sawir gacmeed lagu muujiyey sida dembigu u dhacay baaraha kiiskan oo ka socday hoggaanka baarista dembiyada ee CID ayaa maxkamaddu u caddeeyey asbaabaha kiiskan uu yahay mid ku talagal ah ninka lahay dhibanaha asigoo hurdaayo soo kacay kadib asiga waxa uu isku dayay maadaama isku ciidan ay yihiin inuu la hadlo aragtida koowaad macnaha baasow ku bilaabay 3 baaloota ku dhacday dhowr 20 iyo maasiyad qodobaan la soo tolay waa aragteen oo malna raaliyan la wadaagnay referdooyinkii iyo sawiradii guud marka mudane garsooryaal baaris dheer markaa sameynay waxa inoo cadaatay eedeysane Ayuub inuu si ku talagal ah u weeraray dhibanaha gurigiisa u weeraray una dhaawacay maxkamaddu waa maagsantahay ku-xigeenka xeerraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida dhamma xasan siyaad maxamed tarsan ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha la mariyo ciqaab adag laguna xukumo bixinta dhibka uu geystay isla markaana laga saaro ka mid ahaanshaha ciidanka xoogga dalka mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaasoo dhan marka la isku daro waxay caddeynayaan in uu fal dembi uu dhacay eedeysanuhuna uu yahay eedeysanaha geystay dembiga waxaa cajiiba mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh eedeysanaha in tababar ku filan la soo siiyey dowladduna ay gelisay waqti iyo dadaal badan balse wixii la soo baray ee wanaagsanaa ee ay ahayd inuu ugu faa'iideeyay dalkiisa iyo dadkiisa ayuu wuxuu dhibaato u geystay ciidankii harjiifka la ahaa biri hadduu dhaawacmo kuwii dhaawiciisa qaadi lahaa ayuu dhibaato u geystay ku jeestay qorigii la siiyey asigoo dhaawacay dhibane dable xoogga nuuruddin maxamed abuukar oo ururka la tirsan mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan codsanaynaa oo codsigeena ugu dambeeya yahay eedeysanaha in lagu qaado qodobada aan ku soo eedeynay ee ah 440 bargaraaf 2 oo ah muxuu ka hadlayaa dhaawac culus ayuu ka hadlayaa eedeysanuhu waxa uu geystay dhaawac culus sida ay maxkamaddu aragtayba sidoo kale wuxuu galay qodobka 326 oo ah qalqalgelin dadweyne ma qalqalgeliyay marka dadweyne uu qalqalgeliyay wuxuu weeraray xaafad uu degan yahay dhibanuhu oo ay ku sugan yihiin hooyadiis iyo aabihiis iyo walaalihiis iyo bulshadii diriska la ahayd oo dhan ayuu baas la dhacay sidoo kale waxaan ku soo eedeynay qodobka 491 oo ah qasaareen hanti ma qasaareeyay marka eedeysano wuu qasaareeyay wuxuu burburiyay gurigii dhibanaha risaastii riday ayaa burbur xoog la gurigaas u geysatay oo ilaahay ka bixiyay dadkii kale ee guriga ku sugnaa taa oo ah qasaareen hanti inuu qasaareeyay guriga uu burburiyay waxaan codsanaynaa mudane gudoomiye oo codsigan ugu dambeeya uu yahay in dhibanahu uu cadaalad helo eedeysanahan lagu qaado qodobada aan ku soo eedeynay isla markaana looga naxariisan lagana saaro xubinnimada ciidanimada marnaba u maqalmo inuu ka sii tirsanaado ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee sharafta leh ee geesiyaasha ah ee sida wanaagsan waajibaadkooda u gudanayo maxkamaddu way mahadsantahay qareenka eedeysanaha ayaa sheegay in muwakkilkiisa uusan sameyn qalqalgelin amni eedana loogu simo dhaawaca uu geystay maadaama uu qiraalka yahay waxaa la rabaa waxa uu qoraayo inay ku saleysnaadaan xaqaa'iqda dhabta ah oo ka run sheego waxaas uu maanta baaraha uu sheegayo waxa uu sheegay ma aha mid uu ka run sheegayo sababtoo ah markuu asaga ka qoro dhinacii kale oo ashtakada ahaayo dhibanaha ahaay waxa uu ka qoraayo muddaci waay oo qofkaas anti uu ku yahay maadaama uu anti ku yahay inuu u isticmaalo ma aha waa inuu qof dhexdhexaad ah uu raadiyaa oo saddexaad ma jirtaa qof saddexaad oo dhexdhexaad ah maya muxuu yidhi waxaan ka qoray marqaatiyaal haye ma joogaan waxaa keenaysid caddeey kiisaa lagu dhisaa xuquuqa qofku waajib mayso oo laga qaadaa xuquuqa qof loo xukuma maxay u baahan tahay
clear inuu caddeeyo ma caddeey ma caddeynin xafiiska xeer ilaalinta waxaa looga baahnaa marka baaraha kiiskaas saas uu ku sameeyo inuu ku celiyo reject uu dhaho ama uu kala wareego baaristiisa si waafaqsan qodobka 70 iyo qodobka 70aad ee xeerka habka farqadiisa isaga uu dhisto baaristiisa markaas baaristii asaga uu soo dhistay iyo nuxurkii oo saaran iyo caddayntii oo saaran in la keeno si loogu kala cadaalad falo labada dhinac ma sameeynin marka meeshaas waxaa jirto maxkamadda inta hadda ee ku indha qaadatay in mataqaanaa ay fiiriso dhaawiciisa iyo mataqaanaa waxa yaallo marka mar haddii intaasi ay jiraan ee aan soo gudbinay maxkamadda waxaan ka codsanaynaa in dhaawaca loo geystay dhibanaha ee waafaqsan qodobka 440 ee uu sheegay muwakkilkeena in dhaawacaasi ay tahay mid kaga fakatay laakiin inaysan jirin wax uu qalqalqaliyey ee laga qaado qodobka 326 iyo 491 in ay u sinto dhaawiciisa isla markaasna ayuub ee xuriyadiisii ugu celiso marka loo qaado ehelada maxkamadda waa mahadsantahay fadhigan oo fursad lagu siiyey eedeysanaha ay dhinacyada dacwadaba ayaa garsoorka wadatashi ay yeesheen kadib waxay go'aan ka soo saareen kiiskan dable xooga 49916 ayuub maxamed fiqi ayayna maxkamaddu ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidan ah ka saaris xubinnimada ciidanka iyo bixinta magta dhaawaca dhibanaha sida uu warbaahintu u sheegay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida cabdiraxmaan gacan warbaahinta qaranka muqdisho